dowladda Turkiga ayaa waxa ay magaalada Muqdisho keentay ciidan aad u fara badan kuwaas oo la sheegay inay qayb ka noqonayaan fulinta howlgalka gaarka ah ee lagu doonayo in lagu saldhigo goobaha shidaalka Soomaaliya lagu baarayo ama goobaha shidaalka Soomaaliya lagu sifeynayo sida ay sheegeen ilaha kala duwan. Wararka uu helayo warbaahinta Xuuraansi waxa ay sheegayaan in saacadihii u dambeeyay dowladda Turkiga ay waday dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrintan, iyadoona saraakiil ka tirsan dhanka Ankara ay tilmaameen in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arrimahan. Sida ay xaqiijiyeen ilawaareedyada kala duwan, waxaa socda dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka loo gaari karo hadafka guud ee dowladda Turkiga ay ka wado dhanka iyo Soomaaliya. Magaalo xeebeedyo fara badan ayay Turkidu waxay ku sameeyeen sahan baaris ah, taas oo ay ku doonayaan inay ku guudgalaan marka la eego qaabka loo gaari karo baarista sahanka shidaalka Soomaaliya iyo goobaha kale ee loogu talagalay in lagu sifeeyo si aanay dalka looga saarin shidaalkaasi marka la soo saaro, oo haddii la qaado dhaqaale fara badan uu ku bixi karo sida ay sheegayaan ilawaareedyo kala duwan. Ujeedka Turkiga uu u doonayo in gudaha Soomaaliya lagu sifeeyo waa sababta gaarka ah ee Ankara ay ku doonayso in laga hortago shar walba oo ka hor imaan karta shidaalka Soomaaliya baaristiisa iyo in dibadda loo iibgeeyo ama la geeyo isagoo halka lagu soo baarayo. Dowladda Turkiga ayaa waxay diyaarisay qalab casri ah oo lagu xiri doono goobaha loo arko inay yihiin meelaha la dhigi karo shidaalka si looga hortago halis walba oo ku horgudban baaruud waa dhanka iyo badaroolkaasi oo lagu sheegay in ay yihiin balaayiin barmiil oo fuustooyin ah oo Soomaaliya laga heli karo saddex ka mid ah ceelashii shidaalkii baarista lagu sameeyey. Ilawaareedyo kala duwan waxa uu warbaahinta Xuuraansi ka soo xigtay in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo kale oo dowladda Turkigu ay doonayso, taas oo ay ku raadinayso sidii loo fududeyn lahaa ujeedada guud ee la xiriira arrintaasi si loo gaaro hadafka ugu weyn ee ah in la sameeyo soo saarka shidaalka Soomaaliya, oo haddii la gaaro ujeedadaas noqon doonto in dowladda Turkiga liiska taariikhda ay ku geli doonto dalkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ka soo saaro shidaalka. Waxaa jira dalal badan oo reer galbeed ah oo marar badan isku dayay inay xatooyo ku sameeyaan shidaalka Soomaaliya, laakiin waxaa ka hor istaagay iyaga oo isqabsaday maadaama inta badan dalalkaasi ay doonayeen inay helaan suuqyo kala duwan. Waxa loo bartamayo waa badda Soomaaliya, meelaha kheyraadka uu dhex ceegaago, waana midda keentay in dowlado badan arrintaas ay ka hinaasaan. Waxyaabaha inta badan suuragelin kara in dowladaha qaarkood ay doonaan in ay Soomaaliya xiriir la sameystaan ama shidaalka in ay ka raadsadaan ayaa ah in ay doonayaan ka faa'iideysiga nacfigaasi iyagoo u soo maraya dhabaha dhanka diblomaasiyadda ama siyaasadda sida ay sheegeen ilahani. Wararka uu helayo warbaahinta Xuuraansi waxay dhanka kale tilmaamayaan in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo kale oo Ankara ay wado, taas oo ay ku raadinayso qorshaha guud ee la xiriira qaabkii loo gaari lahaa hadafkaasi si loo saldhigana uu yahay in la gaaro ujeedada ugu weyn ee dowladda Turkigu ay ka leedahay in la soo saaro kheyraadka dabiiciga ee shidaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in la geeyo goobaha loogu arko in ay yihiin meelaha lagu sifeynayo shidaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa xilligaas imaan doona Soomaaliya marka la helo dhulkaas ku habboon in laga dhigo saldhigga. Ujeedka ugu weyn ayaa ah in dowladda Turkiga ay doonayso in meelo amni ahaan kor laga ilaalin karo, sidoo kalena bulshadu ay ka fog tahay in laga dhigo meelaha sahankaasi lagu sameynayo si loo gaaro hadafka ugu weyn ee ah in badaroolka Soomaaliya bannaanka loo soo saaro. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda badaroolka Soomaaliya waxa uu sheegay mas'uuliyiinta iyo saraakiisha kala duwan ee dhanka iyo dowladda Turkiga waxay dhankooda tilmaameen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabkii ama hadafkii loo gaari lahaa in la sameeyo howlgalkaasi, taa oo keentay in mas'uuliyiinta Ankara ay diiradda saaraan qaabkii loo gaari lahaa ujeedka laga leeyahay dhanka fulinta howlgalkaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu dhankiisa tilmaamay in arrintan ay tahay fursad weyn oo Soomaalida u soo hoyatay, sidaasi awgeedna la joogo waqtigii loogu talagalay in la soo saaro badaroolka Soomaaliya isla markaana gudaha Soomaaliya lagu sifeeyo.
Turkiga ayaa dhanka kale wuxuu doonayaa in uu saldhigga dayax-gacmeedka uu ka tuurayo, taas oo ka dhigaysa in Soomaaliya ay geli doonto qaanada dalalka Afrika ee dayax-gacmeedka laga tuuray ama dayaxa macmalka laga tuuray, taas oo information ama macluumaad fara badan uu soo dirayo kadibna la heli doono. Sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda Ankara waxa uu dhankiisa tilmaamay in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo noocaas ah, isagoona tilmaamay in haatan waxa socda yihiin hadafka ugu weyn ee Turkiga uu ka leeyahay dhanka Soomaaliya. Wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta ee warbaahinta Xuuraansi ku daawo.